muuqaalkan ma ahan kaftan sababtoo ah wuxuu ku saabsan yahay YouTube. bartan waxay sahashay in qof kasta uu samaysto janaal iyadoo aan la isku eegin hal abuur iyo aqoon. taas daraadeedna halkan waxaa ku badan koontooyin waxtar aan u lahayn dalka iyo dadkuba. bal maxaadan ogeyn oo halkan YouTube ka jira? ma baahin dadkeena iyo dalkeena u baahnayeen ba? arag bal midkan wuxuu leeyahay ورياها هاي فيلم فلقة kani waa mid kamid YouTuberiska laguna magacaabo CK. wuxuu si maalinlaha u baahiyaa faaqidaad la xiriirta fanka, jilaaga ama jilaayada iyo ka hadalka cawrada hablaha. ka hadal kaliya ma ahe humaag qoto dheer ayuu ka eegaa dulduleelo ay ahayd in la qariyo. arag سأقول جيدو شهدي شرف وحابب مودابة لف مله مياه الله مكينة ما فحرم bal muxuu uga hadli waayay waxbarashada hablaha? isagan hadda fanka hablaha caynaya ayaa u dhalan rogtay fanaan heesiisu aanay micno iyo aayatiin dambe oo Soomaali ay doonto lahayn. waxa ila tahay fanka awalba karaamo kuma joogin, heesana kuma joogin. kanina waa Shiine Culey, isagoo nin raga oo xambaarsan magacii rag ay mudnaanta koowaad u lahayd ilaalinta iyo dhowrista xuquuq haween ay leedahay ayuu boqolaal dad ku xiran u tabinaya war lid ku ah qof dumar ah. waxa ku joogtay heesta iskalaaj kula qaado iyo tan cawaale aad kula qaado hees aan ka ahayn oo ay leedahay ku hay halkan ku hay meesha la rabo ku hay heestaas laga xus kara wax kale oo ay ku joogtay male. sheekadan kaliya ma ahan YouTube barnaamijyada ka jira ee aad la yaabi karto. mal midkan ila eeg وقاعد ضبط كجر ميلو قاعد أنا ميل أنا قاعد ما بقرنا يا أنا ما قرنا يوم يعني يقول فرح ترى ماشى هذه ما دي آدم قرنا ينين وح دتك شيء جيسي سير تامر كدتك قرنا يا وح شيء جيسي إن وح وقدر ناس kanina waa YouTuber kale oo lagu magacaabo Darisla Cabdi. waxa uu doonayaa inuu ku qanciyo daawadayaal isugu jiri kara kuwa isaga ka aqoon badan, ka karti badan, ka maskax fiyow, inuu u sheego wax isagii tabinayay aanu aqoon u lahayn. YouTube-ka dhinac waxa la dhigi karaa warbaahin, dhinacan waxa la dhigi karaa waa wax iska laftirkeeda ma ka soo yimaada ma fahmooyo. kanna waa Xasan Toob, waxa uu leeyahay xarun warbaahin oo ugu sheego oo ay ka soo baxaan boqolaal dhalinyaro ah laakiin isaga dantiisa gaarka ah fuliya. waxa uu ku qasbaa dhalinyaradaas oo mudnaanta goowaad siiya in ay magac yeeshaan, in ay sameeyaan waxyaabo raad xun oo dambe noloshooda ku yeelan kara, sida isagan hadda uu malaayiin qof ka hor sheegayo oo kale. mararka qaar fanaan aragta inaan soo caambixisto aan nashqadaygaan ku sheegaa muftaad fanaan 7 bilood wuxuu leeyahay 7 bilood aniga fanaan fag ku jira waa soo caambixi waray 7 hees ma qaado macquul ma amay 7 hees man uu ka saamiyaa ma qabto taqaan dad yaqaan ma leh adigu yaraan xaafadda mara cid islaamis ma leh iska dhaafaan bay ana ku kasaay dameer shumiyaan damar waa hagaag walaalayaal, haddaba maxay tahay fariinta ama talada aan idin jeedinayo raggiinan waaweyn ee waxyaabaha qaar ku kacay? tan ugu horeyso CK, waxaan kugula tali lahay walaalkayow inaad ka feejignaato ku talaxtalidda ka hadalka arrimaha haweenka. xitaa haddii aad ka hadlayso waxyaabo qosay dumarka, marka hore qiimee in qof dumar ay tahay, ayna mudnaan leedahay, ayna tahay in la ilaaliyo sharaf qof haweenaya. Shiine, adiguna waxaan kugula talinayaa walaalkay inaad isxisaabiso inta aan lagu xisaabin. waxyaabo waxaa jira ninka ragga ah geed ku xiri kara oo ay tahay inuu ka feejignaado ka hor inta aanu ku hadaaqin. afka ii furan kaliya laguma hadlo ee waxa laga xisaabtamaa aqliga. Darisla Cabdi nin dhalinyaro oo dadaalaya tahay, laakiin waxaan kugu waarinayaa inaad ka feejignaato waxa aad soo gudbinayso adoon aqoon u lahayn inaad bulshada hor imaato. marka hore waxa ku waajiba waxa waa in adiga fahantaa kadibna aad bulshada u la wadaagto. intaas waxay ahayd wixii aan ka arkay baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ka oo bariyahan dambe aad u socda. mahadsanidin.